Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan soo qaadan doonaa qisadii ka ogeysay amiirulmu'miniin Cumar bin Khadaab Cumar al-Faaruq radiyallahu canhu, lana fudud madaxda u talisa maanta ummadda muslimiinta ah. haddaba intaanan u gelin qisadii ka ogeysay amiirulmu'miniin Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu, haddii aad nagu cusub tahay sabee subscribe, taabo gambalaalka ama jaliska si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada fiidiyoyadaan soo gelino. haddaba waxaa la soo wariyaa inay soo food saartay Cumar bin Khadaab amiirulmu'miniin radiyallahu canhu ciidan yaraan baahsan. kadib Cumar bin Khadaab waxa uu xirxidhay sanadiisii dagaalka iyo ratigiisii, kadibna waxa uu safar u galay ardu shaam oo ay joogeen ciidankii muslimiinta ugu badnaa oo uu hogaaminayo amiinu hadihi al-umma Abu Cubayda Caamir bin Jarraax radiyallahu canhu. waxaa la soo arooriyaa inuu kusoo beegmay Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu xilli ay isku diyaarinayeen ciidamada muslimiintu inay qadada u fadhiistaan. kadib Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu ayaa galay teendadii uu ku jiray Abu Cubayda Caamir bin Jarraax radiyallahu canhu. kadib markaasay ku yidhaahdeen ciidankiisii iyo amiirulmu'miniin, waxaad rabtaa cuntada loogu talagalay askarta mise waxaad rabtaa cuntada loogu talagalay madaxda iyo hogaamiyeyaasha? Cumar bin Khadaab walaalayaal waxa uu ku caanbaxay cadaaladda uu falaya walaalayaal ummadda uu talin jiray. kadib Cumar bin Khadaab waa uu yaabay, markaasuu ku yidhi labadaba ay keen walaalayaal si uu ogaado farqiga u dhexeeya cuntada ay cunayaan madaxda iyo ciidamada dagaalka ku jira. kadib Cumar bin Khadaab waxaa loo hor keenay cuntadii loogu talagalay askarta jihaadka ku jirta. kadib markaasaa waxaa lasoo hordhigay walaalayaal cunto fiican oo wada hiliba fiican oo una qalanto qof jihaad diinta ilaahay ugu jira in la siiyo. kadib markaasuu ku yidhi haddana halay keeno cuntadii loogu talagalay hogaamiyeyaasha ama madaxda. kadib markaasaa lasoo hordhigay walaalayaal roodhi yar oo qallalan oo in yar ah iyo caano yar walaalayaal. markaasuu Cumar bin Khadaab waa uu ooyey, markaasuu ku yidhi wallaahi kaamuu been sheegin qofkii kugu tilmaamay inaad tahay amiinu hadihi al-umma oo ahaa walaalayaal xabiibkeeni Muxamed sallallahu calayhi wasallam. haddaba haddii aad ka heshay qisadan walaalayaal, sheer garee lana wadaaga asxaabtaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.